bilowgii dunida marka la aadamaha abuuray ee dunida la taagay waxaa intaa dadka iyo quruumaha ku noolaa ka haray taariikh iyo dhacdooyin ilaa waqtigii la xasuusto. taariikhaasi dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ah qisadii jacaylka ahayd ee qays bin mulawax iyo layla. runtii qisadani waxay ka dhacday dhulka jasiiradda carabta, sidaa darteed waxaan jeclahay inaan halkan ku soo gudbiyo in yar oo kooban oo ka mid ah qisadaasi oo ay dadku aad u xiiseynayaan, gaar ahaan jiil kasta oo soo koraya. magacaygu waa Diine Xuseen Shacab, halkani waa kanalka Iftiinka. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. assalaamu calaykum. qays bin mulawax oo lagu naanaysi jiray qays al-majnuun wuxuu ku dhashay mandiqada Najd oo hadda dhul ahaan raacsan dalka Sacuudiga. qays wuxuu ahaa suugaanyahan oo aad ugu xildheer gabayada oo uu ka dhaxlay aabihiisa. waxaa kaloo aad ugu xildheeraa taariikhda iyo dhaqanka carabta, wuxuuna yaqaanay cilmiga xadiiska. qays wuxuu ahaa wiil akhlaaq wacan. gabadha uu jeclaa waxaa la oran jiray layla bintu mahdi binti sacad. layla iyadana waxaa lagu naanaysi jiray ummu maalik. layla waxay ahayd qays in adeertiisa, waayo carabtu dhaqan ahaan waxay isu guursan jireen sida isagu dhow yihiin. waayo wiilka markuu gaashaan qaado waxa uu guursan jiray badanaa in adeertiisa, sababtoo ah haddii uu gabar ka fog guursado waxaa laga qaadayaa meher fara badan iyo xoolo xad dhaaf ah. sidaa darteed wuxuu doorbidi jiray ninka carabeed inuu guursado in adeertiisa. si kastaba arrintu ha ahaatee, qays iyo layla yaraantoodii isku meel ayay ku soo koreen maadaama ay ilmaadeero ahaayeen, waxayna wada raaci jireen xoolaha. waxayna ahaayeen laba carruur oo aad isu qadariya, ixtiraam iyo kalsooni badanna ka dhaxayso. marka ay weynaadeen mid walba waxaa soo baxay quruxdiisii iyo wanaaggiisaba. haddaba layla kolkaysa u weynaatay waa la xijaabay oo waxaa loo sameeyey guri u gaar ah aanay ka soo bixi karin, waayo carabtu dhaqan ahaan markii gabadhu soo hanan qaado way qarin jireen si aanay u wareegin, aadna waa loo ilaalin jiray. haddaba markii layla la qariyey, qays wuxuu dareemay jacaylkii u qabay layla, waxaana ku bilowday baholyowga caashaqa. kadib wuxuu isku dayay inuu raadiyo si uu la kulmo layla, wuxuuna maalin kasta ugu imaan jiray gurigeeda. waqti aad u badan ayuu la qaadan jiray isagoo dareensiinaya sida uu jecel yahay. hase yeeshee waxaa arrinkaa ogaaday layla aabbaheed, waxaana qays laga mamnuucay inuu tago guriga layla. waxaa kaloo la sheegaa inuu xaakimkii degmada arrinkaa la gaarsiiyey, isna uu qayska layla ku amray inay dilaan hadduu yimaado gurigooda. haddaba qays markuu arrintaa maqlay waxay ku noqotay dhibaato aad u weyn, arrintaasina waxay ku faaftay dhammaan jasiiradda carabta. waxaa kaloo aad u faafay gabayada uu layla u tirin jiray ee uu ka cibaaray sida uu jecel yahay. qays waxaa aad u bedelay duruufihii uu kagala kulmay jacaylka, ilaa uu ka noqday qof keligiisa isla hadla. aabihiisana wuxuu isku dayay inuu u guriyo layla, balse way ku gacan seereen reerkii layla. dhinaca kale layla aad ay ugu luguli jirtay gacliyaheeda qays. marmarka qaar waxaa dhici jiray inay la kulanto habeenkii dhuumash ahaan. iyadoo ay arrintu halkaa marayso ayay ku faaftay dhammaan dalalka carabta, ayaa layla aabbaheed u guuriyey nin maalqabeen ah oo la oran jiray wardi. laakiin layla raalli kamaysan ahayn guurkaasi. haddaba qays markuu arrintaa maqlay wuu ka sii daray ilaa uu gaaray heer oo uu iloobay nafsadiisa, aad ayuuna ugu sii daray marxaladdii hore uu taagnaa. qays wuxuu noqday nin waalan oo meelaha wareega, kuna hadaaqa magaca layla iyo gabayo jacayl ah oo u tiriyo. si kastaba arrintu ha ahaatee, maalmo dabadeed waxaa dhintay qays aabbihiisa, isagoo ku maqan dhulka lamadegaanka ah oo iska wareega jacayl awgii. laylana xaalkeeda uu ka sii daray maalinba maalinta ka dambaysa, iyadoo dhakhaatiir badan loo geeyey waxna laga waayey. haddaba layla markii wax waraha ka weysay gacliyaheeda qays, xaalkeedan aad u xumaaday, ayay si cad ah ninkeeda ugu sheegtay inay jeceshahay qays. ninkeedana wuu xanaaqay markii hadalkaasi ku tiri, uuna dharbaaxay, sidaa ayuuna ku furay. aabbaheeda warkii markaa loo sheegay
aad ayuu u garaacay. haddaba Layla in ka badan bil way ka go'day raashinkii, afkeedana xitaa hadal waa laga waayay. muddo kadibna way u geeriyootay Qays jecelkiisa. haddaba waxaa dhacday maalin Qays uu durjoog noqday oo meelaha iska wareega. ayaa maqlay isagoo hurda meel cidlo ah, laba nin oo safar ah oo ka sheekeynaya arrinta Layla iyo Qays. waxayna ka codsadeen inay warbixin ka siiyaan Layla, waxayna u sheegeen Layla inay dhimatay. intaasi kadib Qays dhulka ayaa la yaraaday, jihadii ayaa ka habowday. isagoo ilinta ka qubanayso ayuu soo baxay oo qabrigii Layla soo dul istaagay, isagoo baroranaya, ilaahayna ka baryaya inuu isagana dhinto oo Layla ka daba tago. maalmo dabadeed Qays wuxuu isaga laabtay dhulkii uu ka yimid ee saxaraha ee lamadegaanka ahaa. muddo 25 maalmood kadibna waxaa meydkiisa laga helay meel cidlo ah, waxaana lagu aasay qabrigii Layla dhinaciisa sanadkii 490 taariikhda hijriga, waxaana qabrigooda lagu magac daray qabrigii mucaashiqiinta. waxaan soo gaarnay gebgabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkana like saar si ina gaarsii saaxiibadaada. haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo rukumo janalka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin mar waliba. intaynu ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiis xiga fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.